Jarmalka waxaa ka jira xeer iyo dhaqan gooni ee marka aad kiraysto guri in ay ilaaliyaan warqadan macluumaad kiraystayaasha ayaa laydinku tilmaamayaa iyo laydinku sharxayaa sida aad u heshaan aragti gooni ah. Maanta waxaynu ka hadlaynaa xeerka guriga. Magacaygu waa Maryan Adan Xaaji. Fadlan ka taxadir xeerka guriga. Jarmalka waxaa la ilaaliyaa xeerar gooni ah markii aad adiga iyo deriskaada isla nooshihiin hal dabaq ama fiilo. Markii lagu siinayo heshiiska guriga ayaa lagu siinaya warqadda xeerka guriga ay ku qoran yihiin xeerar kala nooc ah. Kow, ka taxadir qaylada. Telefishinka iyo raadiyaha waa in uu codkooda markasta ku ekaadaa qolka. Markasta waa in aad iska ilaalisaa shaqo guri oo qaylinayso sida huufarka, ku garaacid buris ama dube iyo muusiko waqtiga nashasada. Laga bilaabo 1:00 duhurnimo ilaa 3:00 galabtii iyo 10:00 habeenkii ilaa 7:00 subaxnimo. Axadda iyo maalmaha fasaxa waa in wax qaylo ah la sameyn waqtiga fasaxa ama markii ay kulmaan dhowr marti ah oo joogaya wax ka badan 10:00 habeenimo. Waa in aad u sheegtaa deriska kale iyo ka codsataa inay ogolaadaan. 2. Hagaaji iyo nadiifita guriga. Kiraysta kasta waa in uu ilaaliyaa in mareenka guriga, dhulka hoose ee alaabta la dhigto ama kor goobta alaabta la dhigto, garaashka iyo goobta alaabta la dhigto in ay nadiif ahaadaan. Guryaha qaarkood waxay qortaan shirkad guriga nadiifisa. Kharashka ka soo baxa waxaa loo qaybinayaa kiraystayaasha guriga. Haddii ay noqotay in ay nadaafadda ka mas'uul yihiin kiraystayaasha, waxaa jira ballaanta nadaafadda qoran. Taasi waa in aad ogaataa. Jarmalka wuxuu ka cayaarayaa recycling door weyn. Taasi waxay u fiican tahay deegaanka iyo dhimaysaa kharashka ku baxa qashinka. Guriga waa in aad goobta qashinka loogu talagalay gelisaa. Ka taxadirtaa in aad qashinka ku tuurto meesha loogu talagalay. Caaga madow waxaa loogu talagalay qashinka guriga. Yellow waxaa loogu talagalay balaastikada iyo baakayada. Brown waxaa loogu talagalay wixii dabiici ah. Buluug waxaa loogu talagalay waraaqdaha daboolka. Qashinka waa in markasta daboolnaadaa sida urka ka soo baxayo looga maarmo. Ka taxadir mareenka biyaha in uu qashin xirin iyo suuliga. Ka taxadir raashinka soo haray, dharka iyo waxyaabo kale in aadan ku ridin suuliga. Tuuridda qashinka waaweyn. Tuuridda qashinka aadan u baahnayn iyo alaabta kaa jabtay waa in aad arji gooni ah u qoratid shirkadda qaabishan qashinka. Waxaad awood u leedahay gurigaada sanadkii 2 jeer ilaa iyo 2-3 ama sanadkii 1 mar 4-3 in lagaa qaado adigoon wax lacag ah bixin. Isdiiwaan gareyska iyo qashinka lagaa qaadayo. Waxaad ku talagashaa qiyaas 4 usbuuc. Alaabta lagaa qaadayo waxaad dhigaysaa bannaanka markii lagaa soo doonayo. Arjiyada waxaad ka heli kartaa hoos mustarka guriga ama guryaha qaar waxaa hawsha qabta ninka hoos mustarka ah. 3. Ammaanka ka taxadir. Ha dhigin jaranjarada wax alaab ah sida ay u bannaanaato jidka baxsiga iyo gargaarka. Haddii kale waxaad khatar gelinaysaa haddii lacala dib dhaco noloshaada iyo dadka kula degan. Albaabka dhismaha waa in la xiraa sida ay dad kale u soo gelin. Sida debka looga maarmo, waa mamnuuc in balkoonka iyo goobta bannaan ee guriga grill lagu sameeyo. Ku cabid sigaar goobta lagu kulmo sida jaranjarada, dhulka hoose, kor goobta alaabta lagu kaydiyo lama ogola. 4. Raadiyaha iyo telefishinka iyo anteenada. Haddii aad ka fiirsato satellite barnaamijyada waddankaada, waxaad u baahantaa in saxanka satellite-ka la suro, laakiin waan in aad arji ogolaasho qoraal ah u qorataa shirkadda guriga ama qofka iska leh. Ogolaashada qofka guriga iska leh waxaa ku xiran shuruudo, goobta iyo sida aad u dhigi lahayd saxanka satellite-ka. Sidoo kale guryaha badana saxanku wuu saran yahay. 5. Dhaqaaleynta xoolo. Xoolaha sida eyga, bisada ama xoolo kale waa lagu ogol yahay haddii aad ogolaasho ka haysato qofka guriga kaa kireeyay. Haddii aad wax su'aal ah qabto macluumaad ku saabsan Jarmalka waadna weydiin kartaa qoraal hoos nagu reeb. Sida u dhaqsiyaha badan ayaan kugu soo jawaabaya. Halkan aad naga dawanayso waa Deeqsame. Magacayguna waa Maryan Adan Xaaji.